dad badan ayaa door bida inay joogteeyaan cunitaanka hilibka digaaga gaar ahaan qoorta iyo sararaha iyadoo xilliyadan dambe hodheelada qaarkood hilbaha noocaas ay ka dhigeen kuwo si gaar ah loo diyaariyo oo ay ku xidhmeen dad fara badani xilli ay dariiqooyinka casriga ee xilligan digaaga loo koriyo looguna naaxiyo sida dhaqsaha leh ay ka mid tahay in lagu tallaalayo oo lagu durayo hormoonno kala duwan ayaa haddana halkaa waxaa ka bilaabanaysa khatarta ina dul hoganaysa oo ay sabab u tahay dhibaatada caafimaad ee ay hormoonnadaasi u leeyihiin aadamaha iyo xidhiidhka tooska ay la wadaagaan sababaha keena cudurka kansarka maadada story s waa hormoonnada lagu koriyo ee lagu naaxiyo digaaga taasoo badanaa lagaga duro qoorta iyo labada dhinac taasoo macnaheedu yahay inay hormoonnadaasi ku badan yihiin labadaas qaybood ee jidhka digaaga ka mid a khatarta kale ee aynu kala kulmi karno isticmaalka hilibka digaagu waa cunitaanka diirka sare ee hilibkiisa kaasoo sidaa dufankii ugu badnaa 3 jeer laabna ka dufan badan hilibka cas ee lo'da kuguna sababi kara inuu kor u qaado kolestaroolka jidhkaaga waxaana in badan oo dadka ka mid yahay isku dayaan inay hilibka digaaga shiilaan si ay dufan badan uga saaraan laakiin farsamadaasi waa mid sii kordhinaysa khatartiisa maadaama gubashada ku timaada diirka sare ee hilibka digaagu uu dufanka badan ee uu xambaarsan yahay u bedeli karo maadooyin kaarboon ah oo dheefshiidkaaga ku kobcin kara waxyaabaha keena cudurka kansarka sidaa daraaddeed dariiqada ugu saxan ee aad hilibka digaaga u diyaarsan kartaa waa inaad si caadiya u kariso ama aad foornayso waana inaad ka fogaataa inaad saliid ku shiisho ama ku dubto sidoo kalena aadan badsanin cunitaanka qoorta digaaga si aad uga baxsato cudurka kansarka hannaanka iyo heerkaaga cunto waxa uu saameyn dhab ah ku leeyahay caafimaadkaaga haddaba iyadoo laga hadli karo raadka ay cuntadaadu ku leedahay miisaankaaga caafimaadkaaga iyo quruxdaada ayaa dhanka kale waxaa isweydiin karaa noocyada cunto ee qofka aadamaha ku keeni kara cimri degdega xagga da'da kuwaasoo dad da'doodu ay yar tahay ka soo saaraya calaamadihii waayeelka si aad wixii awooddaada uga fogaatana qaybaha cuntooyinka iyo cabitaanka ee soo socda ayaannu barnaamijkeenna ku eegi doonnaa mar walbana waa in maanka lagu hayo in gabowga iyo waayeelnimadu ay yihiin arrin aan la hori doonin waxaa ugu horreeya cuntooyinka sida degdega ah loo diyaariyo ee inta badan hodheelada gaarka ah loo furtay kuwaasoo cashada oo kale kugu diyaaranaya adigoo aan gaadhigaaga ka soo degin mana aha tan macnaheedu in cuntooyinka noocaasi ay caafimaadkaaga si toosa u dhaawacayaan laakiin waa cuntooyin ay suuragal tahay in aanay helin dabkii ay u baahnaayeen sidoo kalena dufankoodu badan yahay oo ay lafta kaga sii jiraan dufan gaadha heerka dareeraha dufankaasoo bedeli kara qaybaha dhiiggaaga ee halbowlayaashu ay tuurayaan waxaana dufankaasi kordhinayaa qiyaasta sunta ah ee jidhkaaga ku jirta sababahaasoo kugu keeni kara inaad cimri degdegto waxaa kaloo cuntooyinkaa ka mid a hilibka la warshadeeyo ee qascadaysan oo ah hilib lagu sii daray maadooyinku loogu talagalay inay ilaaliyaan iyo kuwa dhanaaneeya oo soodhiyama inkastoo culimmada caafimaadku digniino badan ka bixiyeen cunitaankiisa oo ay ku taliyeen in wax yar laga qaato ayaa haddana dhanka kale waxaa hilibka warshadaysani kugu keeni karaa qaybo badan oo cudurraa halka sidoo kalena ay maadooyinka kabriidka iyo soodhiyamka ee ku jira hilibkaasi ay maqaarka sare ee jidhkaaga waxyeelayn karaan tallabadaasoo waddada u xaadhisaa in wejigaagu duuduumo oo muuqaalkaagu noqon waayo mid dhalaala kadibna aad u muuqato qof da'diisa ka weyn waana calaamad ka mid a cimri degdega cuntooyinka dhanaanka wata ayaa ka mid a cuntooyinka aynu kaga hadlayno barnaamijkeennan waana cuntooyinka markooda horeba dhanaan iyadoo aan milixba lagu darin waxaa ka mid a hilibka digaaga ka xoolaha qaarkood badharka ama jubunka iyo cuntooyin kale oo qaarkoodna warshadaysan yihiin qaar kalena la qasacadeeyey cuntooyinka dhanaanna ma aha kuwo ku soo kooban oo keliya kuwo milixda lagu badiyey oo qura cuntooyinka ay ku badan yihiin maadooyinka carbonhydrate ayaa iyaguna keena in qofka sida joogtada ah u isticmaalaa uu cimri degdegayo iyadoo maadada carbonhydrate-ku ay kor u kiciso dhiigga waana cuntooyinka suuragalka ka dhigi karaa ee kugu soo dedejin kara inay kaa soo baxaan calaamadihii waayeelnimadu iyadoo sidoo kalena macaanka jidhka ku bataa uu kugu keeni karo in maqaarka sare ee jidhkaagu uu ku dheganaan waayo
lafaha taasoo ah sifooyinka cimri degdega. bunka ama kafeega oo aad si xad dhaaf u cabto ayaa ka mid noqday cuntooyinka keeni kara inaad cimri degdegto oo muuqaalkii dushaada iyo da'daadu ay siilan waayaan. bunkuna waa shayga ka samaysan maadada kofiinka, waana shay carqaladeeya hanaanka kaadida isagoo jidhka ka fuuqsanaya xaddiga biyaha ee ku jira kadibna kugu sababaya qallayl joogta. waana sharaab diiran oo hanaankaaga jireed waxyeelayn kara haddii aadan biyihii loo baahnaa la cabin ama la qaadan. culimada caafimaadkuna waxay in badan ku taliyeen in la yaraysto xaddiga kafeega ah ee sida maalinlaha loo cabo. waxaynu ku soo bandhigaynaa cadaymihii culimada caafimaadku ku ogaadeen in haddii roodhida la geliyo talaagada qaboojiyaha ay isu beddelayso shay sun ah oo heer dhimasho sababi kara. tiro badan oo dadweynaha ayaa talaagada ku rida oo ku xafida cuntooyinka qaarkood sida roodhida oo kale, taasoo ay muddo dheer u daayaan qaboojiyaha. laakiin culimada caafimaadku waxay ogaadeen in marka roodhida la geliyo talaagada qaboojiyaha ee haddana hadhow la diiriyo oo la kululeeyo ay roodhidaasi isu beddelayso sun dilaa ah. taasina waxaa sababaya habka roodhida loogu keediyey talaagada oo ah inay dadku ku ridaan oo ku xidhaan baco iyo kiishash balastika. kiishashka balastikada oo raad ku yeelanaya marka lagu xidho cunto diiran kadibna si degdeg ah loogu dhex dhigo talaagadaadu qabow. marxaladda isbeddel ee ay gashay roodhidaasi darteed waxaa ku dhalanaya maadada loo yaqaano dioxin oo ah maadooyinka sababa cudurka kansarka, iyadoo roodhida noocaasa cunitaankeeduna uu kugu sababi karo cudurka kansarka, iyadoo hadhaagii balastikada ahaa ee roodhida ku hadhay uu raacayo dhiigga qofka bani'aadamka haddii uu si joogto ah u isticmaalo roodhida talaagada la geliyey ee haddana la diiriyey. dhammaantoodna waxa ay yihiin kuwo kugu sababi kara dhibaatooyin caafimaad oo hadidi kara noloshaada. waxaa kale oo jirtaa in marka lagu xafido qaboojiyaha ay roodhidu lumiso qiimaheedii cuntanimo oo ay ka baxayaan maadooyinka fitamiinaadka ah ee ku jiray, waxaana ku hadhaya oo keliya maadooyinka carbonhydrate-ka, borotiinka iyo maadada dufanleyda ah ee roodhida dhadhanka u samaynaysa marka dib loo diiriyo. bahda caafimaadkuna waxay kula talinayaan dadka roodhilayaasha iyo bulshada isticmaashaba inay roodhida diiran ku duubaan oo keliya warqadaha aluminiyamka. taa lamid ahna waxay si gaara loogu jeediyey waalidiinta guryaha si ay u ilaaliyaan caafimaadkooda iyo ka carruurtooda. ku soo qaadanaynaa qaabka aynu ku kala galan karno bariiska la sameeyo iyo kala beero. waddanka Shiinuhu waa dalka soo saara ee dhoofiya bariiska ugu badan, isagoo wax soo saarkiisa bariisku gaadhay ilaa 2 milyuun oo tan sanadkiiba. waxaana muddooyinkii u dambeeyey soo baxayay warar tilmaamaya in ay Shiinuhu soo saaraan bariis badan oo ah nooca la sameeyo ee warshadaysan, xilli ay culimada caafimaadku ka digeen inaan bariiska noocaas ee samayska ah aan la isticmaalin maadaama uu khatar ku yahay caafimaadka aadamaha. waxaana jira dariiqooyin fudud oo adiga oo gurigaaga jooga aad ku kala ogaanayso bariiska la beeray iyo ka kale ee samayska ah. waxaana dariiqooyinka ka mid ah adiga oo soo qaadanaya madiibad biyo ah kadibna ku shubaya bariiska haddii uu bariisku noqdo markaa mid badankiisu dul heehaabo oo dul sabeeyo biyaha. taasi waxay ku cadaynaysaa in bariiskaasi yahay mid la sameeyey oo balastika ah, khatartiisuna ay badan tahay. dariiqada kalena waa inaad bariiska ku shubtaa weel maran oo dabka la saaray. haddii aad aragto isagoo bariisku degdeg u gubanaya marka ah oo ay ka soo baxayso siifadda caag la gubay oo kale, taasi waxay markhaati kaaga tahay in bariiskaasi yahay mid gacanta lagu sameeyey ee aan ka soo go'in beeraha, waana nooca khatarta caafimaadka inule. waxa kale oo jira in aad bariis la kariyey oo aan wax iidaan ah lagu darin, farahaaguna taaban, aad dhigto meel yara dugsoon muddo dhowr maalmooda. haddii aanu isbedelin waxaa ku cad inuu yahay bariiska la beeray ee wanaagsan. laakiin haddii uu samays yahay waxa uu noqon doonaa mid muuqaal ahaan si weyn isu bedela. biyaha oo aynu ognahay faa'iidada ay noo leeyihiin ayaa haddana waxaa jira qaab biyaha saafiga laftooda loogu samoobi karo,
taasoo ah marka uu qofku hal mar cabo in ka badan 6 litir oo biyo ah kuwaasoo kugu keenaya inay cinjiraha dhiiggu furfurmaan dhiiggaaguna biyoobo ayna kugu dhacdo madax wareer maskax falluuq fahamku kugu yaraado ilaa aad ka gaadho heer miridoorsan ah oo dhimashana sababi kara sida haddaba ay bahda caafimaadku inoo soo gudbinayaan waxaa kaloo ka mid ah cuntooyinkaasi milixda oo haddii aad in badan ku darsato cuntada ama aad sideeda u qariidho oo dabeeto aanad biyo cabin kugu keeni karta khatar caafimaad maadaama jidhkaaga ay ku badanayso soodhiyamku xididada jidhkaaguna dareemayaan qallayl iyo oon ay ku keentay milixdu shukulaatada oo ka mid ah cuntooyinka macmacaanka ayaa dhimasho ku sababi karta qofka aadamaha ah haddii uu iska dul fadhiisto kartoonkeeda oo hal mar wada cuno ilaa 80 xabo oo shukulaata iyadoo maadada fibrinta ee ku jirta shukulaatadu ay tahay mid uu jidhka aadamuhu uga baahan yahay xaddi kooban calaamadaha lagu dhajiyo ee ka dal muuqda khudaarta kala duwan ee suuqyada taalla waa shay ay in badan oo dadihii ku wareeraan iyadoo badanaa dadku aanay fikrado dheeraada ka haysanin macnaha calaamadahaasi waxaana ay u haystaan uun shay iska caadiya oo ahamiyad sidaas aan sii lahayn taasoo ah tallaabo khaldan ugu horreyn wax soo saarka beeraha ee suuqyada yaalla waa 3 qaybood oo ay ka mid tahay wax soo saarkii soo jireenka ahaa oo ah mid camuudii uu ka baxay lagu bacramiyey waxyaabo kiimikala qaybta labaadna waa midhaha ka soo baxa beeraha aan loo isticmaalin waxyaabaha kiimikada ah iyo ta saddexaad oo ah midhaha ku soo go'a qaabka waxbeerashada ee tallaalka qaybaha wax soo saar ee midhaha waxaa dushooda ka muuqda calaamado nambaraa oo muujinaya tayada midhahaasi ay leeyihiin iyo nooca ay yihiin iyadoo haddii nambaradaasi ka koobnaadaan 4 nambar oo ka bilaabma 3 ama 4 ay caddaynayaan in midhahaasi ay yihiin kuwo loo beeray qaab dhaqameedkii hore ee camuudda la kiimikayn jiray haddii ay nambaradu noqdaan 5 kooda u horreeya uu 9 yahayna taa macnaheedu waa in midhahaasi ay yihiin kuwo qaab caadiya loo beeray oo aan wax kiimikala lahayn laakiin halka sartu ka qudhuntay waa marka ay nambarada calaamadda ka dal muuqdaa ka koobnaadaan 5 nambar oo ka u horreeyaana noqdo nambar 8 taasoo ka markhaati kacaysa in midhahaasi yihiin kuwo ku baxay qaab tallaala oo aan caafimaad ahaanna kuu wanaagsanayn inaad adigu iibsato ama aad cunto